shacabka reer Gaaris oo dhigeysanaya waxaan rabaa inay cafiyaan cafis iyo musaamaxadan ka baryaya dhibaatooyin fara badan ayay reer Gaaris 40 sano hadda aan soo dhaafnay ayay la kulmeen waxaana kala kulmeen madaxda Garissa County khaasatan kuwa aan lagu xamanayay inaan isku garab siiyay kuwa aan lagu xamanayay ama aan taageero siiyay oo kamid yahay governorka iyo xildhibaanada Garissa so waxaan rabaa qofka uu khaldama waxaan rabaa ilaahayna waan ka baryay inuu cafiyo shacabka dhigeysanayna waxaan leeyahay cafiya mid labaadna shacabka dhigeysanaya waxaan rabaa inaan u sheego waxaan u maraynayaa iyo shacabka gobolka Waqooyi Bari sheekadan qabiilka waxa lagu qaybsani sheeka soconayso aniga ma oho gobolka Waqooyi Bari intii hadda qabiil waxa lagu qaybsaday Gaaris Wajeer Mandera waxay keentay inay ay imaadaan siyaasiyiin iyo madax egaan anigoo waliba sharaftooda ilaalini howlgab badan sameeyeen ummadana meesha ay ka fulanaysay ka soo bixin haddaan usoo noqdo Gaarisa ummadda Gaaris iyadoo webiga ugu weyn magaalada uu marayo ummadda Gaaris magaalada iyo miyiga oona loo dhamaanay lacagtii iyo hantidii biyahana lagu maareyn lahaana waxaa loo dhiibay dowlad goboleedka uu hogaamiyo barasaabka Gaaris waa nasiib daro maadaama qabiil ku dhisan yahay markaad tira war magaaladii waa laga ooman yahay iyo biyaha hadda maanta waxaa jira abaar xun maanta Garissa County iyo Wajeer iyo Mandera hadduu ilaahay dadka soo badbaadinin oo roobkiin waxaad maqli doontaa iska dhaaf xoolahe inay hataa shacabka dhamaadaan dadkii mas-uuliyadda iyo hantidaas loo dhiibana waxay noqdeen dad maaragtay khayru mas-uul noqdeen markaad tiraado war magaalada biyo maa la siiyo waxaa lagu dhihi anaku ayuu noo joogaa qabiilkaana wuu joogaa gulkaana wuu joogaa nasiib darro kansaa ku leh asaga gurigiisa biyo maro dameer ku dhaansanaa kansaa ku leh waad ogtahay magaalada Garissa isbitaalka ugu weynaa gobolka Waqooyi Bari ugu fiicna waqtigii wali dowlad goboleed ay imaanay magaaladaas ku yaala ilaa Wajeer ilaa Gaaris ilaa Tanarifa ilaa Isiolo ilaa Soomaaliya iyo isbitaalka level 5 loo imaan jiray maanta waad ogtahay beenna ma sheegay kursi barasaabna ma rabi hebel xumeena kamalihi sidoo ilaahay amray inaan runta sheegnaan sheegi isbitaalka maanta hooyooyinka markay umulaayeen sheega oo warqaysan waxa weeye suufka ama cotton woolka iyo markuu cunuga soo baxo bahasha xudunta looga guyo markaas u dartana bahasha xudunta waxa weeye 5 shilin way kemiska kan suufkana waa 50 shilin maanta iyo biyihii meeshii lagu dhaqilaa hooyadii cabileed maanta isbitaalka maro iska dhaaf in qalatiin iska dhaaf daawooyin kale iska dhaaf fata baradon isbitaalkaas taqriiban 350 milyan ayaa la siiyaa sanadkii kaliya oo ku jirin lacagta la siiyo countigaas waa level 5 hospital nasiib darro way inta qof oo u dhimatay ayagoo hadda waqtigan covid-ka loola soo cararayo Nairobi maadaama oxygen laga waayo magaalada iyo isbitaalada dowladda ee Gaaris waa la taran karaa wadayaal muhiim ah oo magaalada ka talin jiray ayaa u dhinteen 22 maanta aan ku hadlayo hooyooyinka kuma umri karaan isbitaaladana markaad weydiisan wuxuu dhihi hebel baa loo joodaa ilaantiisana markuu geemasha suufkii loogu umulaya maqan magaalada waa aragtay dhulkaad sheegtay dhulkaas dadka raba inay maamulaan waa dowladda gobolka dowladda sare waxay bixisaa title
ummadda waxaan ahnay war ummadda iskugu yeera war dhulka u qaybiya dhulka ilaahay gobolkeena si gobollada kale maho dhulka ilaahay baa badiyey ilaa gaaris ilaa madoogashaa yaa dhul inta la isku haysto waa in yar nin kastaa u yar kii meel weyn haysto meeshii in yar ka sii kii kale sii haddii hataa la bixiyo 5,000 10,000 oo بلوت دي اللي بحي مقالة والنظام عدالة وقيبيو dadka way kala joogdahay nasiib daraad dhacday ana xilibana meesha ka ahaa 10 iyo 12 sano dadku waxay ku dagaali jireen garuuma iyo waxay ku dagaali jireen iyo baangada waxas siyaasiyiin hadda ka taliya magaalada Gaaris dadka way garanayeen oo gacan ku dhig leh ya ummadii waxay u gadeen qorya ummadii qorya u gadeen ummadii isku dhibeen qorya kuwii kalena ay karaan dhinac kalena qorya soo qaateen magaalada Gaaris saldhigga weyn oo ciidamada ugu weyn oo madaxweyne Uhuru Kenyatta uu furay iyo magaalada Gaaris ahda yaa ummadda isku laynaysa hooyooyinka waa la laynaya dhalinyarada waa la laynaya waa nasiib darro waxaana keenay markay mas'uuliyadda maaragta dadka loo dhiibay ay noqdaan maaragta khayru mas'uul oo ilaahay ay ka cabsoonin oo maaragta dhiigga muslimka iyo hantida muslimka iyo dulanka ay maaragta ay dhahaan ay damcayna inay dhiigga xalaashadaan hantida boobitaanka hantidana ay xalaashadaan ummadana ay dulmaan marka Gaaris arrimo badan baa ka socdaan doorashada dambe kollaba waa la tashan doonaa laakiin ani midoo baa dhiga sugi ani midoo yaa dhiga sugi Soomaalina tala iga tahay mar dambe qayb kama noqoneen bana ogolaanayay mana uleynayay inay Soomaalina waxaan leeyahay iska ilaaliya qabiil waxa ma taray iska ilaaliya inay mar dambe heshiis qabiila ku dhisan inay madaxda gobolka lagu soo xulo waxaan leeyahay dadka ha tartamaan ninkuu ilaahay u qoraasiin ninkaan hala dhex saartamo laakiin nin asagoo goraba liito oo kursi heli karin oo dhaalim oo muslimka taariikhdiisa la ogyahay ayaa qabiilkii markay heshiyaan oo miskii jaambidii lagu fariisto yaa kursi heli ama barasaab u noqon ama MB buu noqon ama wuxuu noqon women rep ama senator uu noqon ama wuxuu noqon MCA marka shacabkii baa baabi hatta 5 sano iyo 5 horaba waxaan arkaa sayra tahay ani urumadana xarba inay taa ka shaqeeyaan inay sheekadan reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel iyo ciidan iyo ciidaas yaa wax isku darsadeen waxay la soo baxeen line up oo hebel iyo hebel iyo heblaay iyo heblaay ana waxa waa ka jiritaanka iyo waxtarka iyo islaamnimada madaxda khaasatan Soomaalida ay soo doortaan ay wax weyn u dhimaysaa marka waxaan leeyahay ani aadan bar kuma jiri diyaar ninka iga sugaayo inaan geed hoos fadhiisto oo aan sidii 2017 baan khalad weyn sameeyay qof muslim aan ahay khalad weyn baan sameeyay waxay anigana diyaar uma ahayn laakiin kullu waxana waa qadar ilaahay rag hadda aan leeyahay muslimka ay cafiyo yaan isu gaari oo nala soo saaray gaari dadka ma fuuli jirin gaari hadda bas rag kale ku jiro iyo haweenkii haween ku jiro yaa gacanta iga igaasaan iyo baskan furaha waa kale warade baskan ala maanta wadi dareewal kale waa leeyahay hadda laakiin waxaan diyaar u ahay sidii ninkii caanaha galaaska loogu shubay maadaama uu caano ku dibay si qawooyin uu qofriyey canii uu gubtay canii iyo suxun ilaa carabka ilkaha waa gubtay markii dambe waxay gaartay markii caano la siiyo ama wax cadba la siiyo oo ku jiro galaas waa fuufi war waxaa inay maxaad u afuufaysaa caanaha way qawooyin wuxuu yidhi hadda ka hore ama cad ku gubtay marka hadda siyaasigan ku dhisan nabashada democracy iyo qabiilka ani waxaan ku gubtay 2017 diyaar mihi ninkii hadda raba inuu ii keeno fikrad qabiil iyo aan tii 2017 aan ku noqono wani waa nafuufi
mugta wada foofi marka ummadana waxaan leeyahay nin kasta oo lasoo doortay aakhare waa lagu weydin mas-uuliya ilaahay xilka noo fududeeyo ilaahay ummadda xilkana lagu dhiibay ilaahay maaragtay inkaartooda hanaga duwo yowm alqiyaama dadka madaxda iyo siyaasiyiinta su-aalahooda waa gaar meel gaar baa la geyn su-aalo gaar bay leeyihiin marka waxaan leeyahay ummaddana way garanayeen dadkay dhegeysanayeen way garanayeen gaaris ninka baajiyey dadka baajiyey dadkii dad waxaa jira hadda lacag bixin oo kambayn garaynin dad waxaa jira intii gacanta la qabtay laga soo qaaday inta meel kale la geey oo hataa uu garanayay dad waxaa jira 2 jeer dhaceen oo hadda laiskugu tagay xoolo loo guray oo cod loo guray oo qabiil loo abaabulay oo ummadda aan u tagnaanahay war bal nagu fiiriya annaka war bal annaka nagu fiiriya war annaka wadayna haddana muxuu sameeyey maxay sameeyeen waxay sameeyeen nasiib darro weyna dhacday marka gaarisa waxaan leeyahay aniga wariga ku hadlayo oo afka rag dad badan oo aan iskula jirnay ololihii doorashadii 2017 waxaan leenahay hanala cafiyo annaka kumaana tala jirin inay ummadda biyo loo diido in ummadda caafimaad loo diido in ummadda hub iyo dagaal iyo sokeeye iyo fidno laga dhayo oo dhulkooda ay isku laayaan in ummadda baadiyaha iyo miyigaba ay biyo la-aan u dhamaanayaan waqtigan abaarta inay ummadda maaragta dhiigooda iyo hantidooda la xalaal laga dhigto kumaana tala jirin laakiin way dhacday waxaan leenahay dee waan tooba keenaynaaye waddadan kuma noqonayn marka raggaana diyaar umaho meelo badan baan isku imaanay sidaan aniga u shalaynayaan siyaasiyiin maaho marka waxaan leenahay ragaalis fursada iyo gobolka waqooyi bari fursada idiin soo socotaa fursada madaxdiina qabiil ka bixiya madaxdiina ka bixiyay ay yihiin waxaad dooratiin wiilal iyo rag iyo haween awalan inay diyaar u inay diinta islaamka bulshada soomaalida dhulka soomaalida difaacaan oo xoogooda iyo xoolahooda iyo aqligooda iyo codkoodana waqti kasta diyaar u inay u sameeyaan waa tahay mushimo aad baad umahadsan tahay su-aasha ugu dambeysa su-aal waxaa jirtaa nagu soo laabatay oo rumors iska ah oo meelaha lagu hadalhayo oo marar qaar baraha bulshada lagu faafin karo oo laleeyahay mudane aadan bare ducaale wuxuu u taagan yahay xilka gafananimo ee Gaarisa iyo arrimo kale oo badan iminkan doorashadii 2022 wax yar oo kaliya ayaa markaasi ka harsan marka ma taagan tahay mise ما معناتها كرسي براسات أمتين لكن هدولاي نفتي وصل لاي ودو نفتي وصل تيلاي نواقار تيلاي أصلا كرسي يقف كسو عليا أصلا كرسي يقف خالا لكن أنت تمرتي ليه دتك هذا جالس ما مره waxaan rabaa inaan furso u helo nafaas u helo sidii aan ummadda u dhaafin lahaa saan ummadda u dhaafin lahaa jinka inaad bixiso marka jinka hadda way ka weynaadeen jinka way ka weynaadeen inaan ummadda dhaafiyo maadaama raadkeyga weli uu ka muuqdo nimankaas lagu magacaabo jinka raadkeyga sidaan ku tirtiri raadkeyga waxaan ku tirtiri anigoo ilaahay baryaayo ilaahay baa wax bixiya asaa wax qaadaa inuu ilaahay ummadda dadkaas dhaafiyo marka haddana ummadda haddii ninki kaloo ay la soo baxaan haddana waan fiirinayna anagoo qabiil fiirinayn waxtarkiisa tacliintiisa islaamnimadiisa ummadda mamidayn marka qaybta aan ka qaadan doono siyaasiga dambana weli lama gaarin ma dowladda baan wax u doonan doonaa dhisi doono ma baarlamaanka ayaan wax u doonan doonaa ma kursi MB baan doonan doonaa
ما إنتان قوي نسقطان أجن وانا تقوي جيري يجوبو تقوينه ميان سكيتي كلام وليش الواوين هذين ما صاحبك يقول لي مدة مركان نقض وذيك سكرت ثاني ما نقضنا لكن تاو وقت بيجي لكم تا بيش جدور شكل من تحي لحبلوت حتى مسؤولية صارن إلهي فضيو إن شعبك جالس تاوشي أنا أشق هبين مالين أنت كلامك يقويه